markale isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films haddii ay tahay markii ugu horeysay channelka subscribe noo sar sidoo kale muuqaalka like noo sar maanta waxaan sii wadi doonaa filimkeenii The Orville kaasoo baarti weynkiisa aad soo daawateen maanta waxaan idin wadaa baarti 2giisii filimkeena ayaana noo marayay laamar oo wax waliba qasay kooxdana ay ka walwalsan tahay halka xaaladiisu ku dambeyn doonto siduu waqtigu u socday Captain Mercer ayaa la imanaya qorshe ah in haddii ay rabaan in ay joojiyaan nidaamka codaynta ay u baahan yihiin in ay helaan qof ka mid ah sargarka isagoona keenay xarunta Lezella iyadoo la kulantay qaar ka mid ah The Orville Captain Mercer ayaana wax ka weydiiyey inay bedeli karaan aragtida dadka ku aadan Lamar iyada oo ku jawaabtay in ay jirto fursad haddii ay dadku ogaadaan dhinaca wanaagsan ee Lamar kadib Senesian Orville ah oo lagu magacaabo Isaac ayaa keenay qorshe ah in ay jabsadaan nidaamka codaynta dhinaca kale Lamar ayaa la keenay qolka masaxada codaynta dadka ayaana ka hartay 10 daqiiqo haddii ay gaarto 10 milyan waa la masixi doonaa dhanka kale Lezella ayaa sheegaysa in dadka Sargas 4 ay yihiin kuwa u naxariista kuwa militariga ah iyo kuwa eeda jecel iyo sidoo kale dadkeeda waaweyn Isaac ayaa jabsaday nidaamka codaynta isagoona been ka sheegay dhinaca wanaagsan ee Lamar dadka ayaana bilaabay in ay taabtaan badhanka cagaarka ah sidaasina ay ku badbaadiyaan codadka ayaana noqday kuwo isku mid ah oo iska daba yimid Lamar ayaana ka badbaaday masaxada toddobaad kadib kooxda ayaa go'aansatay in ay aadaan meero kale oo lagu magacaabo Medieval Earth markan waxaa la doortay Kelly Isaac iyo Lutano Male kadib markii ay soo gaareen meerahan waxay arkeen inuu la mid yahay sida dhulka hogaamiye Kelly ayaa ogaatay in ay tuulo u dhowdahay laba gabdhood ayaana arkay iyagoo ka cararay balse mid ka mid ah ayaa kuftay madaxana ka dhigtay Kelly ayaa la hadashay gabadha iyada oo isbartay waxay soo saartay qalab casri ah iyadoo kana daaweysay dhaawaceeda Kelly ayaa aragtay in medievals badan ay ku xeeraysan yihiin iyadoona ka carartay iyagoo wada jooga xarunta waxaa hal mar qarsoomay meerihii Isaac oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caqliga badan ayaa soo bandhigay in meeraha la xiray xaaladan ayaana ah mid dhif iyo naadir ah meeraha ayaana dhinac ka qarsoomay halka dhinaca kale caadi ka yahay waana sababta uu u qarsoomay isaga oo sheegay in ay ku qaadan doonto inuu soo noqdo meeruhu 11 maalmood Captain Mercer ayaa go'aansaday in ay sugaan inta uu meeraha ka soo laabanayo 11 maalmood kadib fikradii Isaac ayaa guuleysatay meerihii ayaana soo noqday isaga oo ogaaday in arrin cajiib ah ay dhacday in meeraha 11kii cisho ee uu maqnaa ay dadkii kordheen ayna galeen qarnigii 14aad qof waliba oo naxsan Isaac ayaa u sharaxaya in Orville ay soo dhaafeen 11 maalmood halka 700 sano ay kasoo gudbeen kuwa meerahan iyagoo dib ugu soo noqday meerahan markan Captain Mercer ayaa soo raacay waxay ku qasban yihiin in ay helaan dharka dadkan si ay isku ekeysiyaan iyagoona helay dhar balse islaan ayaa si kadis ah uga codsatay in ay u duceyso cunugeeda oo xanuunsanaa intaa kadib waxay xirteen dharkii iyagoona sii watay safarkoodii waxay wadada ku arkeen nin lagu xirxiray geed iyagoona weydiiyey sababta loo xirxiray nin ayaa u sheegaya in wax ay ka sheegeen ilaahigooda Kelly waxaa cad in dadkan ay caabudaan Kelly halka dambiilayaasha lagu dilayay magaca Kelly sidoo kale islaan ayaa cunugeeda u sheegtay in uu waxbarto haddii kalena ay arkayso Kelly kooxda ayaana soo gashay meesha ay dadkan wax ku caabudaan iyadoona ka samaystay taalo Kelly tani ayaana sababtay maadaama Kelly ay la hadashay dadkan ayna daaweysay taasoo ka dhigtay in ay 7 qarni ee ugu dambeysay la caabudo taasoo dhibaato ku keentay kooxdan maadaama ay jabiyeen mid ka mid ah sharciyadii ugu weynaa Orville iyagoo go'aansaday in ay xaliyaan dhibaatadan inta aysan dheeraan iyagoona wajahay dhinaca hogaamiyaha saldanadan oo ah Volantis iyada oo uu sheegay inay tahay dhinte aysan aaminin kadib markii ay ogaadeen in ay tahay Kelly waxay bilaabeen in ay jilba jabsadaan iyaga oo madaxa hoos aadiyay iyada oo ka dhaadhicisay in aysan ahayn ilaah qofna ma aaminin waxay jartay gacanteeda iyadoo dhiig ka keentay iyadoona adeegsanaysa qalabkii iskana daaweysay nabarka Volantis ayaa sameeyay si la mid ah wayna u shaqaysay isagoo ogaaday in aysan ahayn mid la caabudi karo isagoona u ballanqaaday inuu faafin doono warkan markay bixeen kooxdu Volantis ayaa bilaabay inuu faafiyo warkan balse gacanyarihiisa
kaasoo aaminsan Kenny ayaa gadaal ka geliyey mindi isaga oo dilay. Waxaan arkaynaa in kooxdu ay sugayso 11 maalmood oo soo noqosho ah. Markan Isaac ayaa xakameeyey in yar, waxayna noqotay qarnigii 21aad, iyagoona ogaaday in dadku ay weli caabudayaan Kelly. Sidoo kalena dad badan ayaa u dhintay iyada darteeda. Kooxda ayaa ogaatay in qorshahoodu fashilmay. Kelly ayaa la timid qorshe ah in ay iyada nolosheeda inta ka dhiman ay ku qaadato meerahaasi si ay u caddayso in aysan ahayn ilaah. Captain Mercer ayaa ka diiday, balse Isaac ayaa go'aansaday inuu isaga sameeyo maadaama uu robot yahay sayniskana aad u yaqaano. Isaga ay aamini doonaan, isagoona noolaan doono 700 oo sano ee soo socota, sidii in ay 700 oo sakan tahay oo kale. Kooxda ayaana ogolaatay maadaama aysan jirin waddo kale oo u bannaan. Kadib 11 maalmood ee uu meeruhu dib u soo muuqday, markan waxay noqotay mid casri ah, teknolojigana meel sare laga gaaray. Markab ayaa ka codsaday in ay soo geli karaan. Isaac iyo 2 kale oo aliens ah ayaa soo galay gudaha, iyagoo ugu mahad celiyey Captain Mercer iyo kooxda maadaama Isaac uu gacan weyn ka geystay horumarkooda. Kelly ayaana weydiisay in ay weli caabudaan, iyagoona ugu jawaabay in ay mar hore joojiyeen. Filimka ayaana ku dhammaaday labadii alienska oo dib ugu noqdeen meerahooda iyo Orville oo safarkoodii sii wata. Filimkani intaas ayuu ku egyahay. Waxaan aad iyo aad kaga mahad celinayaa inaad soo gaartay dhammaadka muuqaalkan. Sidoo kalena waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saatid, sidoo kalena saaxiibadaada aad u share garaysid. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Waxaa inoo balana muuqaalka xiga. Sidaas iyo nabadgelyo.